markii uu ilaalin waayay xilkii bulshada ka saarnaa ee badqabka waxaa laga qaaday tallaabadii ama ciqaabtii ka dhalanaysay khaladkii uu sameeyey dukaan ama meherad meel noo dhow ku yaalla oo marmar aanu ka adeegan jirnay ama ayaa xilliyada qaar wax nagaga soo bixi jiray ama sharaab dhacay ama wax kaloo dhacay ama buskud dhacay oo dhex yaalla meesha markaa dukaanku muuhan dukaan uu dalabkiisu aad u badan yahay iska dukaan xaafadeed maha dukaanada weyn maaha waa dukaan yar dukaan xaafadeed yar buu ahaa ma cid baa dacweysay si lagu ogaadayba dukaankii mudaan hadda laga joogo marka dhowr toddobaad waxaa albaabada isugu dhuftay oo xidhay qaybta dowladda u qaabilsan tayada cuntada say ku ogaadeenba maalin mise laba wax yar bay u qabteen wixii dhex yaallayba waa la xaraashay kaaga darantee waxaan isnari markii la xaraashayna wax ka soo iibsado 2 sharaabaan soo iibsano soo 2 sharaabana dheydkaba meena nagin gordo goorma iyaguna dhaceenba marka ninkaas in waqti ganax lagu soo rogay in kale laakiin anyway way ku cadaatay waa khalad uu galay marka maadaama uu gabay xilkasnimadii ahayd inuu bulshada ka iibiyo wax saxa oo ma garanaysaa dee aanu bulshada qaldin tallaabadaas baa ku dhacday oo go'aankaas la marsiiyey nidaamka dawladnimadu markuu adag yahay hay'ad kasta oo dawladeed waxay u shaqaynaysaa sida saxda ah ciidamo qashqashayso musuqmaasuq ma jirayo odayayn iyo wax kale oo la dhaqdhaqaajinaya ma jirto waa nidaamka dawladeed ee saxda sida saxda u shaqaynaya ee tubta toosan haysta marka cid kastaaba waxay xilkii loo baahnaa iyo sidii loo baahnaa u gudanaysaa marka ay haysato awood buuxda oo aan cidina culays saarayn marka sharciga loo siman yahay wixii la dhigto la wada raacayo laakiin sharciga markay sharciga laftiisa ku amar ku taaglayso hay'adaha kale ma dareemayaan inay awood ama go'aan qaadasho sax ay samaynayaan marka hay'adaha saa u muhiimka ah ee tayada cuntada ama dawooyinka ama maxay ahaydeen yacni wixii dadka la xidhiidha ee noloshooda halis gelinaya hay'adaha qaabilsan marka runtii ay xeer suganna leeyihiin si xilkasnimana ay u shaqaynayaan waxweeyaan badbaadada bulshada ilaahay baa badbaadada hayee aad buu u sugaya sida ammaanku bulshada in la sugaa uu muhiim yahay ayaa halista caafimaad iyo waxa kale bulshada dhib ku keenayaaba marka laga hortagayo waxa weeyaan waa badbaado aad iyo aad u muhiima marka ninkaasi wuxuu markii uu gabay xilkii saarnaa waxa la marsiiyey waxay ciqaabtiisu ahayd marka bulshada dee ama xeer baa qabta waa qof marka hore dee xeerkan lagu dhisay dadka xeer baa qabanaya marka xeerka qofka u hoggaansami waaya ciqaabtii xeerkaa ka yaallay buu la kulmaya marka waxaa muhiim insha allahu tacala waan iska gaari doonaa institutionskeenu way adkaanayaan way kobcayaan way soconayaan dadku waxba xeerka hala dhaafdhaafo oo hala jiirjiiro wax istabamarintu hay iska jirto laakiin insha allahu tacaala fi yawmin min alayaam ayay cid kastaaba wadada saxda qabsanaysa oo institutionska ay xoogaysanayaan sidii lagu talagalay u shaqaynayaan waqti gaar saraha idin ahaado waa cabshku muxuu soo ku dhaafay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh